ninkii gabiye wuxuu yiri waxaan u batiyay Turkiga wada soo rogay wada soo jiri daaqadii furnayd beelaweynta dhulbahanta ku furnayd wax kasto oo gudaha yaalo banaanka u saaraysay waxa weeye dhibaatada ugu weyn ay waxa weeye ka taagneed haddaynu maanta soo xidhnay oo ahayd in aqoonyahanka dhulbahanta ay mar isu yimaadaan waa guul weeye wax lagu farxo weeye waxa weeye anaga cidda nala soo kala hadli jirtay salaadiinta la soo hadli jirtay horta waa idinka weeye hadda idinku mid noqotaan oo taladiini maanta sida aad u mideyseen aad khaatimo ugu bixiseen ilaahay khayr idinku khatimeen annaguna waanu mideysanay horena waanu mideysanay waxaan runtii aad ugu faraxsanahay maanta oo qiimo weyn aniga ah oo qiimo weyn beesha dhulbahante u ah oo qiimo weyn ummadda Soomaaliyeed u ah in maanta taladii dhulbahante dhidibada loo taagay waa maalin taariikhi weeye waa maalin 1960 oo kale ka taagan aniga maanta haddii aynaan mid noqon oo qulubteena iyo qalbadeena soo jeedin oo aynan taladeena waxa weeye aynaan miday waxaad ogaataan in aynan ina horumar gaarayn Soomaalina qiimihi aynu ku lahayna waxa weeye aynu hoos uga dhacayno Soomaalina ayna mid noqonayn waayo reer taariikh labaad ahaydeen oo aan been ahayn wad ogtihiin taariikhdii aan lahaydeen baa leedka doonaya badhiga laga koob war mid hal la noqdo war hal isu tanaasulo war ninkeena qiimaha la aan ku mitino war meel kale tagi mayno war dibkeena haysta waxna kaga bixi karnaa midnimo weey laakiin goolka aanu lahayn iyo himilada aanu doonaynay ayaanu maanta haynaa waa wax ilaahay lagu xamdina qowey talada dhulbahante aanu raadinayna waa aqoon-yahaniinta dhulbahante ee rag iyo dumar weey haddaad maanta mid noqoteen annaguna mid baanuna shacabkeena oo ka masuula